maalnimadii Arbacada oo taariikhdu ku beegneed 25 bishan ayaa kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah waxay weerar ku qaadeen goob ganacsi oo ay lahaayeen muwaadiniin Soomaali ah oo ku taalay xaafadda Denver oo qiyaastii 9 kiiloomitir u jirta magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Weerarkan ayaa waxaa la sheegay in kooxda burcadda ay ku gubeen guud ahaanba goobta ganacsiga, waxaana xilligaasi la sheegay in gudaha xarunta ay ku jireen ilaa 4 dhalinyaro Soomaali ah oo goobtaasi ganacsiga lahaa, isla markaana halkaasi uu ka soo gaaray khasaare aad u xooggan oo naf iyo maal isugu jira. mid ka mid ah dhalinyarada falkaasi ee waxyeeladu ka soo gaartay oo lagu magacaabo Xuseen Shanle oo la hadlay Radio Muqdisho asagoo jiifa isbitaalka magaalada Johannesburg oo lagu dabiibayo 4 dhalinyarada ayaa sheegay in xilliga weerarkan lagu soo qaaday ay ku dhex jireen dukaankooda. Kooxda burcadda ay adeegsadeen dhalooyin laga soo buuxiyay badrool iyo ashito, isla markaana mar qura ay dabka wada qabadsiiyeen dukaanka ayagoo iridana la istaagay hub si haddii ay uga baxaan dabka loo toogto, balse nasiib wanaag markii dambe dadka deegaanka ay gurmad u soo sameeyeen ayagoo dhaawacyo culus qaba. Ana ugu horeeyay qoftaan ugu horeeyay dhulka marka aan la dhacay yaan ka booday jakadkii ay ugu gubtay yarkii kale iga dambeeyay oo saaka kastam caawinaya isagana ku dhufteen. Marka labadeenaas uu soo waqti hore baarkana leeyahay baa maarka ugu darnaada geed waa xirneed Soomaal dhan ayaga laga taagnaa oo de qoryan waa haysteen iridda laga taagnaa iridda dambe aan isku taanay marka waxaa la helay lagu furay iridda dambe waan helay shirweyne qaabka ka baxay meesha iyo maaragtay guriga dhan baa maaragtay. Suleymaan Macalin oo kamid ah jaaliyada Soomaalida ee gurmadka u sameeyay dhalinyaradan weerarka loo geystay oo la hadlay Radio Muqdisho asagoo ku sugan isbitaalka ayaa sheegay laba kamid ah dhalinyaradaasi dhaawacoodu aad u daran yahay, dabkuna uu jirkoodu si weyn u gubay halka labada kalena xaaladoodu ay wanaagsan tahay. sax weeyaha Cabdiqaadir Cabdullaahi Maxamed waa nin dhaawac fudud sanka iyo adigu dhagaha iyo lugta ka gubtay. ilaahay waa ku roonaaye Maxamed Aymin Xuseen Maxamed Shalle waa ninka dhinac dhan ilaa ma aragtaa xaniyaha iyo wax dhan uu ka gubtay gacmaha. waa asagana nin very serious oo hadda aaman hadalka hataa ku dhib ah labada gacmoodna uu ka gubto gacantiisa ma isticmaali karo, asagana hadda macnaha ICU ku jira. Abuukar Sheekh Daqanina asagana wuu gubtay laakiin waa dhaawac fudud. ninka ugu daran ayaa waxaa marka Cabdiqaadir Ibrahim ninkaas hadalna male nololna macnaha xaq ilaahay uu ka noolaan karaa laakiin se waa ka samarnay anagu macnaha jirkiisa meel la garto male. Abdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Radio Muqdisho, Cape Town, South Africa.